السلام عليكم دمانتين وسلامتين كسو دواذا مر لباد قيبت لباد سيدا GNS3 لوغو دياريو CCNA لا marka waxa kasii wadayna meeshii aan ku joojinay videogi hore qaybta koobaad marka waa kana routerkii gudihiisaan ku jirnaa hadda marka routerkan wuxuu leeyahay laba interface fast ethernet 0 iyo fast ethernet 1 labadaba waa ujeedaa waa dansan yihiin waa administratively down labadaba marka si ii sheeg aan u kicino waxa sameynayna waxa waaye kana ugu horeeyaan galeyna horta waxaan leenahay config t markaasna interface fast ethernet 00 soo ma jeedid hadda ka soo qaadatid fast ethernet efta hadda ka soo qaadatid iyo 00 dan marka waa dhex gasho marka wakaasa hadda waxa ku dhex jirtaa soo ma jeedid markii hore configuration ka kaliya ku dhex jirtay hadda waxa ku dhex jirtaa configuration ka qaybta interface ka marka waxa leedahay no shut hadda tiraahid marka oo commandigan ay ku celisay mar hore waka uu ku sheegayaa wuxuu ku yiri interface change state to up interface kan xaaladiisa waxay isku bedeshay inuu daaran yahay markii hore uu dansanaa hadda waa daaran yahay maadaama uu daaran yahay marka waxa ku dhijin kartaa router kale marka hadda commandigan mar labaad ran gareeno waka markii hore waxay ahayd administratively down hadda waxa waaye up soo ma jeedid marka end baa leenahay si aan uga soo baxno qaybta configurationka marka hadda configurationka ka soo baxno uu ku sheegay wuxuu ku yiri configured from console by console waxa laga configure gareeyay oo waa la bedelay uu leeyahay macnaha configurationkii routerka waa la bedelay intaas uu ku sheegay marka hadda rabtid inuusan iloobin because marka damisid aad daartid mar labaad wuxuu ku noqonayaa administratively down uu isdaminayaa marka si uusan u iloobin waxa leedahay write memory-ga ku qor baa leedahay xusuusta gali si uusan u iloobin marka haddaan damino daarno wali sidiisu ahaanaya oo macnaha kuma noqonayo markii hore oo uu dansanaa interface-ka marka haddaan ka baxno oo mid kale soo qabano router kale markaasna routerkaas kale aan dhex galnaa asagani routerka si ay u dhex gashid waa inaan console tiraahid macnaha waxaa samaynaysaa right click markaasna waxaa leedahay console laakiin wuu dansan yahay marka hadda console ma geli kartaa isagoo dansan marka waa inaad daartid marka hore marka waa right click start baa leedahay start ka dambe console marka hadda wuu furayaa console ka wakaasa marka wuu isdaaray sida u jeedid waka wuu isdaarayaa hadda marka hadda tiraahid show IP interfaces brief asagan wuu dansan yahay soo ma jeedid labada interface way dansan yihiin marka sidii kii hore camal aan yeelno on kicino interface-ka ugu horeeyo waa config t interface f0/0 wakaasa markaas no shut markaas hadda dhaho amar labaad ku celiyo commandigaas wakaa soo ma jeedid kan wuu isdaaray soo ma jeedid marka hore laakiin waa dansanaa marka asagana ka bax markaasna waxaad tiraahdaa write to memory marka waxay jirto Cisco command oo la yiraahdo show cdb neighbor cdb waxay u taagan tahay Cisco discovery protocol protocolka ogaanshaha macnaheedu waxa waaye machine kasta waxay ogaanay machiinta ku dhagan
nooca tahay waxaas marka haddaan hadda niraahno ii sheeg show cdb neighbors neighbor dhan ma laha wax darisa ma laha soo ma jeedid sababta waxaa waaye because wax xiriir kama dhaxeeyo wax wire ah oo connection oo ka dhaxeeya ma laha marka connection kaas ku dhijinaynaa GNS3 sida connectionka lagu dhijiyo waxaa waaye waxaa aadaysaa cable-ka waa dooranaysaa soo ma jeedid sidii calaamadii isu bedeshay markii hore mouse caadi ahayd laakiin hadda waka waxay isu bedeshay plus sign so markaasna routerka korkiisa check siinaysaa markaas F00 wuxuu ahaa interface-kii aan daarnay kaas baa ku dhijinaysaa kanna F00 waa interface-ka labadaba waa green soo ma jeedid markaas waxaa ku noqonaysaa cable-kii waa daminaysaa cable-ka hadda marka haddaan intaan midkood right click ku sameeyo console dhaho ma garanaysaa on dhaho soo ma jeedid markii hore waxaan niri show cdb neighbors waxba muusan soo helin soo ma jeedid device dhan waxa male hadda haddaan up arrow sameeyo flarta keyboardka kor hadda taabto waxay ku noqonay command-gii hore ma aha inaan mar labaad type garay show cdb neighbor hadda dhawo ka wuxuu jeedaa router 1 soo ma jeedid router 1 na waa midkaan waxaan ku dhex jirnaa router 3 soo ma jeedid wuxuu yiri local interface-ka localka ah aniga wuxuu iigaga dhagan yahay F00 asagana waxaan kaga dhaganahay F00 labadaba laakiin haddii interface kale ay kaga dhagnaan lahayn wuu sheegi lahaa ma garanaysaa waxaan marka waa muhiim marka IT ka shaqeynaysid sababtoo ah haddaa garan la'dahay mashiinkaas mashiinku yahay oo rabti inaad u tagtid asaga ku tilmaamay meeshu kaga dhagan yahay markaas inta fiilada raacdidaa soo helay marka waka hadda way is arkaan laakiin ma wada hadli karaan sababteena u wada hadli karinna waxaa waaye haddaa tiraahid show IP route ma laha IP addresses dhan soo ma jeedid ma wada hadli karaan because inay wada hadlaan laba router waxay u baahan yihiin IP addresses ay isugu hagaajiyaan packetiska programyadan dhana jiro marka EIGRP maxalli jiro OSPF soo ma jeedid ishek BGP waxaasoo dhan waa baran doonaa marka hadda wixii aan rabnay inaan tijaabino waxay ahayd inaan internetka gaari karno marka internetka sida ku gaari lahayd waxaa waaye mashiintan waa virtual machine soo maaha laptopka leh internet laakiin iyada internet ma laha soo ma jeedid marka sida ku gaarsiin kartid waxaa waaye inay GNS3ga uu dhex maro ubuntuga internetkiisa sababtoo ubuntu internet uu leeyahay waa computer caadi oo wuxuu dhex marayaa laptopka internetkiisa moogtahay marka sida hanaankaas loo sameeyno waxaa waaye inta click siinaysaa markaas baa waxa qaadanaysaa cloud-kan baa right click siinaysaa configure baa leedahay cloud 1 baa dooranaysaa marka maadaama aan Linux ku dhex jirno hadda Windows dhex ooli lahayn oo virtual machine-kan ay Windows ahaan lahayd dhankan baa ka configure garan lahayd laakiin Ubuntu waa Linux so Linux waxa leenahay interface-kaas dooro haddii Ubuntu aadid oo aad tiraahid if config wakna interface-ka waakan waa midka network runta ku dhagan soo ma jeedid marka kaas dooraad leedahay add apply okay hadda marka interface uu leeyahay marka cable-ka qaadanaysaa waxa ku dhijinaysaa interface-ka aad ku dartay kana aadaysaa interface-kaas from baa kaga dhijinaysaa cable-ka daminaysaa waxa dhex gelaysaa router 1 markaas way dansanta soo ma jeedid markaas waxa leedahay config t interface f0/1 soo ma jeedid no shut laakiin wali sheekada intaas kuma eg sababtoo ah waa inaa IP addresses marka IP address kama gaarno inaan network dhan dhisno complete hadda moogtahay qorshaha waa un GNS3 in la idin tusaa hadda marka
waxaa leedahay IP addresska ka soo qaado DHCP fiirso marka meeshaan waxa dhaco marka dhaho DHCP ka doono VM2 weydiinaya ubuntu wuxuu leeyahay war waxaa isiisaa IP address aan kula hadlo banaanka ubuntuna wakaas wuu siiyay IP address wuxuu siiyay 192.168.145.130 soo ma jeedid marka haddaad tiraahid do ping internetka address kamida oo ah 4.2.2 ma ping garayn karo waka actually wuu ping gareeyaba sababtoo ah VMQ soo dhex maray soo ma jeed hadda GNS3 baa internetka gaari kara hadda inta uu ubuntu dhex maro soma GNS3 waka ping google.com do ping marka waka wuxuu yiri unrecognized host or protocol soma sida arintaas loo xalay waxa leedahay IP name inta ka baxdid inta exit waxa leedahay IP name server waxa leedahay haddaan magac ku sheego tarjun magacaas si aad u tarjuntani weydii addresskaas because 4.2.2.2 waa DNS server 4.2.2.2 waka marka haddaan commandigan ku celiyo uu dhahayay unrecognized host haddaan ku celiyo commandigaas somaha up arrow waka do ping google.com waka wuxuu garan laaya meel uu maro kan marka waa ina default gateway siis marka waxa leedahay IP route 0.0.0 waxa u sii mari kartaa baa leedahay ya macnaha default gateway-ga wuxuu ku xiran yahay here so mask yeah waa .1 145.1 192.116.145.1 marka wuxuu leeyahay markaan iri addresska aad garan weyso waxaad u sii martaa midkaan marka hadda fiiri soo ma jeedid wali Google wuu garan laaya sababtoo ah qofkii uu weydiin lahaa ay computerkii uu weydiin lahaa meel uu maro ma yaqaan marka mar labaad ku celinaya Google fiirso waka do ping google.com wali waa garan laaya okay dibki jiro waa soo gaaday dhowr wax horta kow unrecognized host or address wuxuu dhahay waxa waaye because domain lookup muusan sameyneynin somaha waa inuu domain lookup sameeyo GNS3 disabled IP domain lookup somaha marka waa daaray arintaas IP domain lookup waa inuu domain raadiyo domain waxa la yiraahdaa google.com waa domain tan koobaad waa taas markuu wali wuu tarjumay soo ma jeedid wuxuu yiri translating google.com wuxuu weydiiyay kaas okay wuu helay IP addresska Google laakiin wali ping ma hirgelin sababta waxa waaye firewall-kayga ma yaqaano hanaankii uu ugu soo noqon lahaa VM-kan because network-gan kama jiro gudaha network-giga gudihiisa lagama yaqaan IP address-kan marka si arintaas aan u bedelo VMware-ka bedelaya siduu network-geeda u configure gareysan yahay so waxa aadaysaa adapter soo ma jeed waxa leedahay NAT soo ma jeed maya bridge baa ka dhigaya soo ma jeed marka waka marka hadda fiirisid maxal jiray soo ma jeedid wuu go'ay disconnected buu noqday laakiin mar labaad uu soo noqonayo soo ma jeedid connection established soo ma jeedid marka hadda markii hore fiirsay 192.168 uu ahaa IP addresska